maanta kama warwarayo anigu mushaar la bixiyo ya ishii bugtaanaha ku bakacsato mushaar la bixiyo ilaa iyo middle next year ya waa bixinaynaa haddii ilaha yidhahdo way baxaysaa waa la bixinayaa ciidanka iyo ciddii kale ee mushaaradiida insha allah tacaala middle next yearna alla faxan soo maha alla faxano doorashada la geliyo way dhammaano waxaa kaloo aan kusoo konkuluurgarinaya waxa weeye 4 sano oo dambe sidaa aan ku soconno jidkaa haddaan haysano ciddii doontaaba halkana joogto ya jidkaa aan haysano haddaan haysano meel fiican baan gaaraynaa waxaanan gaaraynaa meesha fiican inuu sheegay waxa weeye meel aanad cid kale u baahan maalintaad cid kale u baahan weydo ya mahmaha badanoo carabina waa jiraan oo arrintaa ka hadla iyo adduunyada kalebe maalintaad cid kale u baahan weydo maalintaasaad qaraarkaaga leedahay cid kale u baahan weydo marka mabda'een iyo ajendaheennuna anigu gaaraan xagga maaliyadda inuu sidaa noqdo waxaan kusoo gabagabeynayaa hantida qaranka waxay tahay mas-uuliyadana saaran bay ka mid tahay hantida qaranku dal burburay baan nahay dalkani dawladdu hanti badan bay lahayd oo meelo badan ku kala filqsan soo celinteedu waa macne effort bay qaadanaysaa laakiin anagu waxaan isku daynay inaan wax waliba halka ay yaalaan soo ogaano ya wax waliba halka yaalaan wax walba cidda isticmaalaysa wax waliba xaalkoodu siduu yahay marka buugaas baan samaynay buugaas wax waliba ku qoran yihiin 18 degmo ee dalku lahaa degmo walba waxa yaala ya iyo xaalkiisu siduu yahay si kastaba aan ku helnay ayaa meesha ku qoran waan hadhow wareejin doonaa haddii ilaahay yiraahdo halkan gawaariba halkan ku soo waran Soomaaliya waxay ka mid yihiin waxyaalaha meelaha ku xadfan waxyaalaha meelaha ku xadfan kuwan ka mid yihiin halkan ku jira ay gawaarisa ka mid tahay ya waxyaalo badan oo kale oo loo kale oo aan samaynay baa jira institute-ka iyo horaan uga hadlay iyo wasaaradda maaliyadda dhismayaasha waxaasi waa waxyaalo yaryar oo aan ahayn wax lagu sii talax tago marka dadka Soomaaliyeed intaad dhageysanayseen waan idin mahad celinaya waxaan idinka mahad celinayaa oo kale comments-ka aad soo dirtaan inaad ku wadaan hadda waxaan samaynay dhawaan number baan samaynay afar raqama oo aan doonina meel walba inaan ku faafino oo qofku wuxuu garan waayo uu la soo hadlo uu record gareeyo hadduu doono magaciisa aanu sheegin waxaase jira uun buu odhan hadduu doono magaciisu sheegi hadduu doono wuu noo iman laakiin si confidentiality-ga loo dhowro magaciisa inuu sheega necessary maaha waxaase jira dabeetana wixii jiray ayaanu wax ka qabanay haddana kusoo celi marka kaasaan imika samaynay waxaan doonaynaa si daah furan maaliyaddu inay u socoto maaliyaddu waxa weeye waxa dalka samata bixiya weeyaan marka intaasaan doonay maanta in idin wadaago aan ducaysano Soomaaliyeed really aan ducaysano waqti adag baan ku jirnaa waqtiga adagna siyaasad ahaan baa waqti adag ku jiraa siyaasaduna waa iska saasay tahay oo adduunka marka doorasho la gelayo xafiiltankeeda iyo murankeeda ya iyo dhibaatadeedu leeyahay everywhere ya marka ilaahay si fiican ay nooga samata bixiyo waa soo gabagabooysaa si fiican Allah inoo soo gabagabeeyo ciddii mas'uuliyadda haysan ilaahay mas'uuliyadda ha fududeeyo ilaahay idinkii waxaan ka baryaynaa dalkan inuu adduunka la falgalo oo la tis qaado ya oo meesha loo baahan yahay inuu gaaro khayraad buu dalkan leeyahay horaa loo yidhi laakiin rag iyo dumar soo saara ayaa loo baahan yahay intaasaan kusoo gabagabeynayaa halkaa waxaa kusoo gabagabooya markaa kulankeenii ministerkii finance-ka la kulan wasiirkaaga maaliyadda la kulan ayaa maanta halkaan kusoo gabagabeynayaa aad iyo aad baan idiga mahad celinayaa caawimada iyo supportka aan idinka helo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu